dagaal culus oo u dhexeeya ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinaca oo mar kale ka qarxay deegaanka Ceel Cali Axmed ee gobolka Shabeellaha Dhexe. wararka aan ka helayno deegaanka Ceel Cali Axmed oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe ayaa waxay sheegayaan in hadda uu halkaas ka socdo dagaalkii ugu cuslaa ee dhexmara ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinacay kooxda Al-Shabaab. kooxda argagixisada Al-Shabaab ayaa la wariyay in ay doonayeen inay gudaha u soo galaan deegaankan toddobaadkii hore ee weerar qaraxyo ku bilowday ee dagaal toos ay ku soo qaadeen halkaasi. kooxda ayaa mar kale isku dayday inay gudaha u soo gasho deegaankan waxaana ka hortagay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa xaquudirirka deegaanka oo ku sugnaa halkaasi. saraakiil ka tirsan ciidamada xoogga dalka oo aan la xiriirnay ayaa sidoo kale waxay inoo xaqiijiyeen in hadda uu dagaalka weli socdo isla markaana kooxda jab xooggan lagu gaarsiiyay ayna dib ugu laabteen deegaanka ay isku dayayeen inay gudaha u soo galaan. Al-Shabaab ayaa maanta tiro deegaanaha oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe weeraro kala duwan ku soo qaaday waxaana u dambeeyay deegaanka Boos Hareeri oo ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo ciidamada xoogga dalka iyo sidoo kale kuwa deegaanka oo isku dhinacay kooxda Al-Shabaab oo maanta dagaal culus uu ku dhaxmarayo halkaasi. taliye Odawa iyo sidoo kale madaxweynaha Soomaaliya oo maanta shir ku yeeshay gudaha caasimadda Muqdisho waxay ka hadleen dagaalada soo laalaatay kooxda Al-Shabaab ee ku soo qaadayaan deegaanada iyo degmooyinka dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe sida looga hortagi lahaa. madaxweynaha Soomaaliya ayaa taliyaasha kala duwan ee ciidamada xoogga dalka iyo kuwa macawisleyda waxa uu faray in ay ka hortagaan dhaqdhaqaaqyada culus ay wadaan kooxda Al-Shabaab isla markaana ay ku doonayaan inay kula wareegaan deegaano iyo degmooyin dhaca gobolka Shabeellaha Dhexe. Al-Shabaab ayaa culeyskii ugu badnaa waxa ay soo saartay gobolka Shabeellaha Dhexe toddobaadkii ugu dambeeyay iyadoo maantana deegaano dhowr ah halkaasi ka tirsan ay dagaal xooggan kula dhaxmarayaan ciidamada xoogga dalka iyo kuwa dadka deegaanka oo isku dhinac ah. waxaana la soo wariyay in kooxda Al-Shabaab jabkii ugu cuslaa lagu gaarsiiyay dagaalka sida ay sheegeen saraakiisha aan la xiriirnay. waxaan idin la wadaagi doonaa wixii warar ay ku soo kordha dagaalada ka socda gobolka Shabeellaha Dhexe maanta.